هذا واحد صباح هو إلا يهدد دور شذي كسر الله أو دبا ما قلنا لقوية قاني ما أهورت ضد كمر مرة قارب وضعها هاي بنت الله وقبائل بنت الله قبائل ما هو الدولة قبائل هو ستة جانو دولة بيجستر ننكي ربكار قبيل إنه حقده لقيه اللي ماي هذا الواحد وجود الدار أول واحد جيرانه قبيل لها عيدا بالله حرج ريه في البارنا وركاس صباح ودراس بنت لا لوسو بداديه وانا نو راعي هدي لهين هدي مرك خرار ده dowladnimada Puntland ninkii hadba joogay inuu ilaaliyo waajibka saaran yahay dadkeedana waa uga mahadcelinayaa sida ay u soo sabreen waxyaabaha uu hadda soo kordhay waxa weeye dad wax garada oo loolanku mar walba ay jiri jireen afkaartuna waa kala duwanaan jirtay laakiin markuu loolanka dhamaado waxa lagu yaqaan inuu yiraahdo Allah ilaa waa sabr hadda waxa soo baxay huwa ilaa ay hadda doorashada ka sabri la oo dib ah ma qadna lagu yaqaan ma aha horta laakiin sabanka hadduu dheeraado wax walba la arkaa sabankii baa dheeraaday waxaan isleeyahay taasna inay xal noqoto oo dowladnimadu iyo shuruucdu ay noqoto kuwa saldhig ah baan rajaynaynaa hadii ilaahay maalmaha kan dad baa waxay u qaateen gulufyada socda inay Puntland leecayso 28 sano jirtay ilaahay idankiis ma leeci doonto dowladnimadan ilaahay idankiis dadkeeda dad qalbi wanaagsan oo dhaawac ma gaari doono mashaakil kasta oo jirana dowladda laga rabaa inay xal u la timaado hadduu yahay xal nabadoonnimo hadduu yahay xal siyaasadeed iyo hadduu yahay xal amni intaba hadda kii ku habboon inay adeegsataa waajibkeeda saaran yahay marka insha Allah waxaan aad u rajaynaynaa dhaqamada meelaha kale u diiday inay dowlad noqdaan inuu annaga soo gelin dhaqamada meelaha kale u diiday inay dowlad noqdaan inuu soo gelin isku dayo way dhacayaan shakhsiyaad mar walba dal la waayimaayo hore way u soo dhaceen laakiin waxaan rajaynayaa qodobkaas ah loolanka markuu jirana in si habsami leh loo loolamo loolanku markuu dhamaadana cid ilaahay markaas u dhiibo xilka in lagu garab galo saasa dhaqankeeno halna waa ka digayaa loolanka xamar iyo garow u dhaxeeya yuusan noqon loolan u dhaxeeya dadka reer Puntland waa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo markii ugu horeysay afkiisa ka qiray in ay jiraan ciidamo xerooyin kala duwan ku jira oo qabiilo kala sheeganaya oo Puntland gudaheeda ku sugan arrintan dad badan ayaa igu mucaaradsanaa waayihii dambe dadka ugu badan ee ka hadlaya ayaan ka mid ahaa hase ahaatee dadka ugu mucaaradsan waxay diidanayeen xaqiiqada la sheegayo xaaladda Puntland ay ku sugan tahay madaxweynihii Puntland ayaa afkiisa ka qiray hada waa afkiisa ogow wuxuu leeyahay maanta waxaa soo baxay ciidamo xerooyin kala duwan jooga oo leh anagu waa ciidankii reer hebel oo xire heblo ayaa soo baxay afkiisu ka qiray xaaladda ceebeed ee Puntland uu isagu baday Dani baa halkaa dhigay dadka reer Puntland waa dad dowladnimada jecel waa dad maamulida jecel waa dad iyagu waxay gacanta ku hayaan ku fara adayga weey marka xaqiiqada ka hadlo mid way mucaaradaan xukunka ugu sareeya inay iyagu qabtaan bay jecel yihiin oo waa dad han bay leeyihiin inay ra'iisul wasaare noqdaan bay jecel yihiin inay madaxweynaha iyagu noqdaan bay jecel yihiin in mas'uul isaga ka koreeyo Soomaaliya uu san jirin way jecel yihiin laakiin waxa ay hayaan ee guryahooda uga dhisan sida maamulka Puntland oo kale weligood 28 sano Puntland ay dhisan tahay kuma aysan dhiiranin kuma aysan samayn waxa maanta jira maxaa sababay marka maanta inay reer hebel ciidankii reer hebel la sameeyo maxaa sababay intaas sii dheer Dani wuxuu yiri hadba xukuumadda joogtaa ka mas'uul ah in amniga waxa weeye xaaladda soo korodho dawladdu ay xakamayso ama xoogga ku xakamayso
وأمن جويل أمن جوا حوج أم حوجة كوحة كما يسمى حيلة كوحة كما يسمى وصح لكن قرمان لربا مركي هنا الحوج كوحة كما يسمى مركي حوج وحلقوحة كما ينيو ومركي حالة وفضول ضحي ضد شخصيات ودوريين ليه إذا أمن جب السوق بتبلدك عن لحظة حسابتنا وحي ربنا نوجهنا حيلتنا أتكون قصته أما كوحو أمن الدروضة أيهن تذكر بوتلان أو دن أيها دني كهري معصنة تذكر بوتلان أو دن بحب الوحى كويني حب ميا الوحى كوين ملالين إذا ما ظنوا شيء يولي بال بيوفديا وإليه وإذا ما هبل وإذا ما قبيل وإذا ما ذي بالهبل وبيله بوتلان أو دن بيله بوتلان أو دن بنقول بعيدا كيسا انتو سمايستي بدولة فدرالك هوستي معنى هذا محيط وحي آن لساني تانيو واد بربرسي كالسوني ملوي كالسوني ملوي واد بربرسي أنه فدرال بان هوستينا انت معمول aan ka helayna way waxay ciidanku ay halka u hoostageen jacayl nin gaar loo qabo ma aha nacayb Puntland loo qabana ma aha labada horta dadku way inay kala ogaadaan Saciid Cabdullaahi Dani ala alkiisan iyo hanjabaadan isku jirta dadka reer Puntland dib ma wadaani isaga dad gaar oo isaga reer Puntland oo dhibaato ku wadana ma jiree isaga Dani ayay dhibaatadu ka bilaabataa kuna dhamaataa haddaad adigu dhibaatada abuurto oo dhibaatada adigu iska abuurato hadda waxa weey waad arkaysaa marka waa la tusay tusaalayna siinaya dadka reer Puntland markii la yiri qof damac siyaasadeed lahaan kara ma jiro qof wax meel kale u dooran kara ma jiro qof aniga wax ii soo doonan karo ay dhaliili kara ma jiro qof waxa weey tabasho sheegan kara ma jiro qof dhibaatada Puntland iyo waxyaabaha ka taagan sheegi kara ma jiro qof xukuumadayda dhaliili kara ma jiro marka tiraahdo oo halka istaagto ilaahay bay ugu dhaariyay dadku ma xoolaha maarta xoolaha bal xoolaha inta xiraq ku xarayso iska badaa dad bini'aadam xoolaha inta xiraq ku xarayso xilligay dareeri jireen ee ooda laga qaadi jiray bal dhaafi bal 2 saac 3 saac gaarsii neef kasta ooda meesha kaga habboon buu ka boodaya oodi laga qaadi jiray sugi maayo laakiin xilligii uu dareeri jiray tusaale ariga 2 saac oo subaxnimo hadaa dareerin jirtay 2 saac ee subaxnimo uu ku sugayaa tartiib halkaas iska sugayaa wax dhiba ma wado ooda markaad ka qaadana halkii ka dareeri jiray ka dareeri laakiin markaad ku daayso oo qorraxdu ku dheeraato oo ku kulaad oo meesha waxa weeye uu dareemo gaajoodo oo oomo oo kululaado oo ari waxa weeye oo duujidaya loodi iyo geelana kama daranba marka xoolihi baa saa sameeyna dadkii bini'aadamka ka warraba dadkii bini'aadamka buu dariitu oo taybu wuxuu yiri ima dhaliili kartaan oo aniga waxaan haleeyay kama hadli kartaan oo aniga waxaan idin diiday kama hadli kartaan maxaad ugu diiday ma dhihi kartaan oo dawladii federaalka waxba ma doonan kartaan qofkii wuxuu doonto waa dambiile qofkii soo siiyayna waa dambiile ninka reer Puntland ee dawladda federaalka u shaqeynaya haduu la soo hadla reerkoodu kuwa la soo hadlay waa dambiilayaal kii la soo hadlayna waa dambiile dadku marka ma xariisanaanayaan ma joogi karayaan dadka reer Puntland waa dad gobonimo jecel waa dad gob ah waa dad samir badan waa soo sheegay laakiin way u dul qaadan waayeen waxyaabaha Dani 7 sano ugu dambeeyay uu ku hayay taasi u dul qaadan waayeen samirka uu reer Puntland ku sheegay warinti way samreen way u samreen 7 sano lagu samreeyay inta ka badan laguma sii samri karay kuma si samir kareeyay marka xoog laguma maquurin kare ninka haduu ka waxa way ugu dareeyay gacanta laga qabto ciidamadan uu sii taad guraynayo waxaan uu soo saaray dhalinyaradu dabka ku shubay ilma dhalinyaro ninka laga qabto Dani laga qabto hadii cid qabanaysa ma jirtaan aamisanahay hadayba jirtaba waxa kale oo ku dareeyaa oo Dani uu yiri siyaasadda u dhaxaysa buu yiri loolanka u dhaxeeya maarinta u dhaxaysa Garowe iyo Xamar arinta u dhaxaysa dadka reer Puntland yeysan ku dhaxmilmin booyin Garowe iyo Xamar wax dhibaato u dhaxaysa ma jiro laakiin laba shakhsi bay siyaasad u dhaxaysa waa Xasan iyo Dani Garowe iyo Xamar waa dad walaalo degan dad Soomaaliyeed baa degan waa laba caasimadood midna maamul goboleed midna waxa weeye heer federaal oo Soomaaliya oo dhan caasimad u ah wax dhibaato ka dhaxaysana ma jiro
hadduu ula jeedo siyaasadda u dhaxaysa isaga iyo xasanna isaga iyo xasan waa madaxweyne federaal iyo madaxweyne gobol bay kala yihiin wax khilaafa oo u dhaxayn karana maba jire laakiin isaga iska abuurtay wuu abuurtay saan rabay ii samee haddaad ii samayn weydana waan ku khilaafi oon kula dagaali xal maa marka dadka reer Puntland hadallada Dani ee meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan aan la garanin damaca uu doonayo aan la garanin fadhiyada isaga iyo xasan ay wada galeen cadeey waay waxa uu doonay ee nacaybka ku dheehan yaysan ku dhaxmilmin dadka reer Puntland ma anigana leh arintaa ha ku dhaxmilmina ha qaadanina hadalka Dani sababtoo ah Dani wuxuu dheefsay wala garanaya xasanow maxaad ra'iisul wasaare uga dhigtay Xamse oo daarooda oo laandheerihi daarooda intaas weeye waxa weeye Dani umrasay gafurka u taagaya 4 sano soo dhaay saawile markuu hadlay saawile saaw carabku malabsanay ilaahay baa ugu dhaariyay runta haddaan laga hadlin waxba hagaagi maayo Dani wuxuu umrasay carabka saawile canufta uu qowlalada uga saynay waa Xamse Cabdi Barre maxaa looga dhigay ra'iisul wasaare war hadda waqtigiisa baa dhamaaday intaad khilaafka iska dayso soo tartan oo wax keenso oo xulufo soo dhiso oo dadka Soomaaliyeed cadiifada iyo xumaanta aad kala dhex dhigaysa taa la dhaho ninkan xumaanta taa la yiraahdo oo dadka Soomaaliyeed waa walaale waxba waxa weeye dadku isma dheero qof walba sagaal buu ku dhashay qabiil buu ka soo jeedaa beel buu ka soo jeedaa waxa kaliya u dhaxeeya waa calanka buluuga iyo dawladnimada federaalka u dhaxaysa taasay wada ilaalashanayaan marka laga soo tago in dad muslimiin oo Soomaaliyeed leeyahay war inta waxa weeye walaal dadkaasi ha kala dirin ninkan ha kala dirin diiba qof la hadli karo haduu jiro ma aaminsan inuu qof la hadli karo uu jiro ninkaas hadiiba la hadli karo ninkan canduufta dhinacyada ka saydaya waxba kama maqnee waa madaxweyne heer state haddii ra'iisul wasaare la qaadan jiray weligeed bareer isagu ka soo jeedaa wada qaadan jiray cidna ma khilaafi jireen war ayar waxa la ninka cagaha dhulka saar hal yiraahdo dadka reer Puntland baan la hadlayaa ee wax garadka qiimaha badan ayaan la hadlayaa dadka cadiifadaysan ee hadalkan uu dhibahayo ee iyagu waxa weeye iska jubaysan ee micna aan dadka waxa weeye wax micnay maanta dooday haystaan aan jirin ee commentiyada wax iska soo qorqorayeen waxaan leeyahay Dani qof horta wixii loo dhibtay ayuu mas'uul ka yahay wixii loo dhibtay buu dayacay wax Soomaaliyeedna in loo dhibta ma qabaano loo mana dhiibay insha Allah ta'ala Dani xil federaal loo dhiibi ma insha Allah ta'ala sababtoo ma qaban karo ninka Puntland taayirta maamuli way dhowr iyo 20 waxa weeye 18 gobol ee Soomaaliya ma maamuli karo 18 gobol ee Soomaaliya ma maamuli karo marka 6 gobol mise 3 gobolba kadib ay Puntland wax iska tartarsatay ayuu maamuli way intaas uu maamuli way marka waxaan leeyahay war waxaan aad soo qoraysaan iska daysaan bal xaqiiqada dhabta dib u fiiriya ayaan leeyahay dadka igu xidhan ee iga aragti duwan anu aragtideedu waxaan qabaa Dani Puntland waa ku fashilmay ummadii reer Puntland waa isku diray waa kala geeyay ciidamadan qabiilka u fadhiya sabab u ahaa dhaqaale xumada aragtay baa jirto Puntland maanta 7 bilood aysan mishaar qaadan ciidamadii iyo shaqaalihiiba dhibaatadaas ay Puntland ku sugantay dhibtaas la rabaa in toos loo fiiriyo leeyahay Dani uu dhibaatada Puntland gelisay Puntland oo aan kab ka helin dawlad federaal aan jirin oo waxa weeye aan dhaqaalaheedu uu yariyo hal dekad hadda laba dekadood bay leedahay oo aysan isku furnayn xataa gobolada kale ee Soomaaliya oo bidcad ay haysato warlords ay haystaan iyo dadka qabiilya oo kooxo adugu hubaysan ay haystaan oo Puntland ninka ka soo baxo gobol kale tay karin ayay Puntland isku filayd oo dhaqaalaheedu ku filaayeen oo rag maamuli jiray oo cid mishaar la'aan aysan jirin oo waxa weeye horumarku uu kala socday oo qofka imaada laga soo dhaweynay oo kor calankeedu kor maanta federal ay kab ka helayso oo mashaariic waaweyn saa u qulqulayaan oo lacag malaayiin ku qulqulayaan oo waliba broker uu noqday oo dawlado kale wadamada la galay oo federaalka uu uga heliyay oo lacag uu ka helayo ayaa hadana la leeyahay 7 bilood mishaar meen qaadan ciidanka shaqaalaha hoosaadka mishaar meen qaadan 7 bilood waxa weeye waxa marka aan ka hadlay inta waxa sii dheer dulmiga ha hadlin ma hadli kartid adoo reer hebela jow hadin ma hadli kartid ima daliil kartid waxa iga sheegi kartid dadka kale carab Puntland war waxaan ka hadlayna waa waxaasi ilaahay baa inagu dhaariyay
bal waxaas haydiin muuqdo dadka yar ee farakutiriska ee dani daba socda ee iska jubaysanow war bal arrintaa dib u fiiriya ayaan idinkana idin leeyahay aad iyo aad baa umahadsantiin